Faransiiska iyo xogayaha wasaaradda warfaafinta ee dalka Djibouti ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay oo faahin ka jeedada kaasi laga leeyahay qabsoomidiisa danjiraha dalka Djibouti u fadhiya wadanka Faransiiska. waxa uu yiri ujeedada aanu ka leenahay kulankan aqoon-yahanada ee toddobaadka soo socda ka dhacaya dalka Djibouti waxa uu yahay kaalinta ay ku leeyihiin aqoon-yahanadu dhinaca nabadda. sida la wada ogsoon yahay muddo 3 sano ka hor kulan aanu ku yeelanay xarunta hay'adda UNESCO ee wadanka Faransiiska ee fadhigeedu yahay magaalada Paris waxa aan iskula eegnay oo aan daraasado dheeraada ku eegnay in laga maarmaan tahay in la sameeyo kulan ay leeyihiin aqoon-yahanada wadamada degmada Geeska Afrika. waxaana shirkaasi uu ahaa mid aqoon-yahanadii ka qayb galay ay arkeen in laga maarmaan tahay